markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo markuu shaqo helo markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacad macruuf oo la yaqaano ka soo qaato goorma la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay marar badanna iclaamka maanta jooga waxaynu maqalnaa iyadoo marar badan lagu celinayo ciddaasaa waxaa ku guulaysatay fii caalami riyaada waxaynu maqalnaa hebel baa guulaystay tiim hebel baa guulaystay ciddan baa guulaysatay fii caalami aliqtisaad sharikaadka waaweyn shirkad heblaaya ku guulaysatay waxa kan wax badan oo bini aadamku uu ka warramayo oo dad guulaystay laynoo sheegayaa jira laakiin xaqiiqadu waxay tahay goorma la odhan karaa insaanku wuu guulaystay maxaase lagu qiimeeyaa guusha ma markuu adduun helo mise markuu magac helo mise markuu sulto iyo maamuus helo ma markuu caruur helo iyo reer iyo deganaanshiyo ma markuu shaqo helo ma markuu higher degree iyo shahaadaad fiican jaamacad macruuf oo la yaqaano ka soo qaato goorma la odhanayaa insaankani waa insaan nolosha ku guulaystay waxay ku xidhan tahay wax badan inaynu garanno hadafi alxayaa maxaynu u nool lahay why we are living maxaynu u joognaa dunida maxaynu ka qabanaynaa waayo ahdaafta bini aadamku uu nolosha ka leeyahay waxna waxaa la yidhahdaa waa ahdaaf marxaliya waa gool isdhadhow ardayga yaree iskuulka ku jira goolkiisa koowaad waa inuu iskuulkan ka gudbo shahaadad yar uu qaato hadhow haddana markuu tan ka gudbo abuu gool iskala yeeshaa ahdaaf yaryar oo kale uu ka gudbo laakiin waxay isweydiinta leh waxoo dhan isku dar ma huwa hadafi alxayaa noloshaba muxuu yahay hadafkeedu waayo wax lama qiimeeyo ama fawska ama successka ama guusha lama sheegi karo haddaan hadaf la xaqiijinayaa jirin markaad hadafka aada xaqiijinayso aada garato oo yool aada leedaho yoolkii aada gaadho oo aad ku guulaysataa la odhanaya hebel waa guulaystay su-aasha isweydiinta leh markaa waxay tahay maa huwa hadafi alxayaa nolosha oo dhan markaad maxay gaadhaa baad guulaysatay what is the purpose of life maxay tahay nolosha hadafka ka dambeeya dadka badh bini aadamka ka midi hadaf way arki kari waaye weyn oo noloshu ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ila mataacu اlguruur ilahi wuxuu leeyay subxaanaه wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu اlmowt naf waliba way dhadhaminaysaa geerida tan waad ka tegaysaa mahmaa kunt wax kastoo aad qabatay magac iyo maamuus kastoo aad yeelatay hanti kastoo aad yeelatay waad tegaysaa maxaa ka dambayn ilaahi wuxuu leey wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama ajarkiinna ama acmaashaa qabateen midhaheeda waxaa laydiin dhammaystirayaa baa layidhi laydiin oofinaya adduunka intaad joogto waxyaaba yaryaroo successisa waad gaadhi kartaa laakiin hadafi alxayaa maaha ama guusha dhabta ah waxaad gaadhaysaa
natiijada kama dambaysta waxaad gaadhaysaa goolkaagii ama yoolkaagii ama meeshaad ku socotay waxaad gaadhaysaa marka aakhiro la tago. aakhiro marka la tagana miisaan qura yaalla bes. faman zuxzixa can innaar wa udkhila aljanna faqad faaz baa ilaahay. qofkii laga dhufto naar la dhaafiyo naaraan gelin jannana gala faqad faaz baa ilaahay. kaas baa liibaanay, xaqiiqatan kaas baa liibaanaa ilaahay leeyahy. ama adduunka iyo wixii lagu hayo o dhan wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur baa ilaahay. nolosha adduunna wax kalaba maaha, waa mid la qalday, mid la kediyey, mid maqruura. mataacid weeyaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, wuxuu birbirsado